si aad u hesho xog walba oo qosayso aflaanta cusub iyo hordhacooda fadlan rukuma channelkeena soo dhaaf gudaha u soo gal lacagtii ma keentay haa waan soo helay sanji ma fiican tahay ufo adiga miya burcad miyaad ahayd isaga ka bilow dilka maxaa kaa qaldan aamus kurid xabadda oo kaliya hadalkayga maqal dhegeysa marka hore ayaa noole tugu waa isaga dil ayaan ku dhahay waaw isku dooq ayaan ahay labadeena gacal samiga hubtaa sida aad ii tahay iyo sida aan kugu helay waa laba nasiib oo aan ku wada faani karo तू बन के हवा आया सची ना सी जो बातें सच हुई जो तूने छुआ वे बन के हवा kani waa dhismaha Masgwan halkaasi uu hadda ku dhumaaleysanayo burcadka weyn ee Isxaaq Shakti dabaqa saddexaad iridda 301 waa bartilmaameedka burcadda 13 qof oo aan waxba galabsan waa ay ku dileen halkaas falka halkaas ka dhacay Bombay oo dhan ayuu gilgilay ambalaasta meel ay martay ayay la fadlan mudan ay fasax kaas waa guriga halka booliska uu celin laayay kumanaan dad oo banaanka isugu soo waa ku bariya taliye oo galab inaan gudaha galo xaska kaligeed ayaan ka soo meesha waxa ku jira nin huwaysan isdaji marka adiga sanji waxaad haystaa 2 saacadood in dalabkayga la ii fuliyo haddii 5 milyan lagu keeni waayo marwada way dhimatay naqsi isqaybiyo waxaan rabaa in aad feejignaato jiha kastana aad kontroosho mudana naagta ninkan ay gudaha ku jirto haw malayno qof caadi ah waa qof dhimirka la ama qabta xanuunka maskaxda oo no xaaladda way qasan tahay mudana mid raaci fadlan shaqadeena aan ka qabsano maxaad ku fikir leedahay haddii aad haysto gabar qurux badan ii sheeg maxaa samayn lahayd ona ay qabto wax yar biyan socday aad buu qatar u yahay si fiican waxa uu shishiiqaan dhiigi cab waxa uu gumaaday dad aan waxba galabsan ma garanaysaa waxa aad samayn doonto ها مدن عدالة iyo xaq ayaan u dirirdo awood ayaan isku ognahay cid kasta waa maqooninaynaa waxaan u dilay ayada aniga waxaan u dhiibay box oo kaliya arxaadad ajartay dul iyo qaanuun wadanaata ugu dambeyntii aniga iyo runteedaba waxa aan naqan xabsiga guntiisa ogow guul kaliya uma baahnid si aad u gaarto hadafkaaga fiiriya ka haabay nolosha xaaskayga qatarta ku jirta adiga sabab u hadda war askar nooca ayaad tahay dabin ayaad dhaxda naga joojisay ilaahay hadda ninkii naagta cid wala ma kala garanaya kuma tahay ninkaaga kaniinyaal ayuu ku siin jiray si maskaxdaada u roganto laguna malay inaad waalan maxaad ku hadlaysaa ayaana badan ayaga na allah kugu tago soogal lacagtii ma keentay haa waan ku wadaa habka calisadeeda sanji habaqin anigaa ku yimid saarta ma imaaday waa ku baryahay badbaadi ninkan wuxuu rabay inay farxumeeyo sanji orod sanji carradiga si aad u hesho xog walba oo qosayso aflaanta cusub iyo hordhacooda fadlan rukuma channelkeena subscribe to our channel waad ku mahadsantahay like taada sidoo kale soo booqo page-ka aan ku leenahay Facebook